asalaamu calaykum yoogada haddaad la socotay saaxada soomaalida maalmihii u dambeeyey waxaa ka taagnaa murankaasoo ku saabsan yoogada ama ciyaarta yoogada dhacdadan waxay ka dhacday magaalada garowe ee gobolka nugaal rag mas'uuliyiin ah ayaa dabcan ka soo qayb galay sidoo kale waxaa diiday oo ka hor imaaday rag mas'uuliyiina uuna ka mid yahay duqa magaalada garowe dhacdadan waxaa soo qabanqaabiyey wasaaradda haweenka maamulka puntland ayadoo loo dabaaldegayo waxa lagu magacaabo maalinta yoogada caalamiga intaas markay dhacday soomaalidu aad ayay uga hadleen sida culimada dadka caadiga aad ayaa arrinkan looga faallooday sidaas darteed waxaan ku qasbannahay in aan ka hadalno in aan dadka u sheegno waxa ay tahay yoogadu haddaba waa maxay yoogada xaggay asal ahaan ka soo jeedaa micnaha ereyga yooga muxuu yahay islaamku siduu u arkaa ama culimada muslimiinta kala duwan maxay ka dhaheen samaynta yoogada aan aragno waxa ay tahay inta aanan wax kala dhihin yoogadu waa samayn dhaqdhaqaaq dhinaca jirka ah lana socota fikir dhinaca maskaxda waana falsafad diimeed hinduusi ah wathani ah yoogadu waa tuquus ama wax qofku uu samaynayo asagoo diin raacayo dhinaca ruuxda asagoona aamusan una taagan ama u jiifo ama u fadhiyo qaab sugan indhahana isku qabanayo yoogadu waa salaada hinduuska markii la fiiriyo diinta hinduuska falsafo ruuxi ah sidaan sheegnay ayay ka dhigan tahay waxayna leedahay naftu waa inay ka xorowdaa jirka waa marka qofku uu samaynayo yoogada si uu u gaaro xikmadda ugu sarrayso sida ay aaminsan yihiin inuu qofku fadhiisto aamuso wax dhaqdhaqaaqa uuna samaynin si ay naftiisa ola kulanto nafta kowniga oo ay ula jeedaan ilaahay micnaha yooga waxaa loola jeedaa ka micno ahaan markii la fiiriya luuqadda sanskriitka luuqad qadiima oo hindiya ka jirtay waa midow magaca yooga waa midowga ruuxda bani'aadamka iyo ruuxda kowniga ee weyn oo ay ilaahay ula jeedaan ayadoo qofku waxyaabo badan oo shirki iyo khuraafaadna uu samaynayo yoogada iyo islaamka marka koobaad dad muslimiin ah oo badan ayaa sameeya runtii laakiin ayagoo xujo ka dhiganayo in ay samaynayeen keliya ama in ay raacayaan dhinaca xarakaadka bese dhinaca dhaqdhaqaaqa ay u samaynayaan ka ciyaar ahaan ka jimicsi ahaan laakiin runtii waa wax lagu qoslo yoogadu waa wax iswato oo aanan kala qaadmaynin dhaqdhaqaaqeeda ama qaabka uu qofku u fariisanayo iyo dhinaca ruuxiga qaabka uu qofku u fikirayo waxa ay ku dhisan tahayna waa aamusnaantaas iyo fikirkaas marka arrinkaas oo xujo daciifa culimada muslimiinta dhammaantood salafi suufi waxaad rabta ku tilmaan waxay isku raaceen in yoogadu tahay ficil hinduusi ah xaaraan ah cali jumca shiikha al-azhar ما حكم ممارسة اليوجا كتمارين للرياضة بعيدا عن فلسفتها الروحانية لا يمكن فصلها عن فلسفتها الروحية وفلسفتها الحلول والحلول لا يجوز عند أهل السنة والجماعة الفلسفة فلسفة إلحادية حلولية فلا يجوز haddaan soo koobno hadalka cali jumca iyo waxa uu ka yidhi yoogada waa inay tahay falsafo ilxaadi ah fikir ku salaysan ku dhisan qaab shirki ah in la aamino ilaah kale rumaynta ilaah aanan la aqoonin waxa uu yahay sidoo kale caalimka sheekh moxamed saalex almunajid الرياضات الروحية ما يسمى باليوغا الرياضات الروحية هذه الرياضات هي عبارة عن فلسفات دينية لأهل المشرق متعلقة بوثنياتهم sidoo kale sidii doctor cali jumcagii shiikha ashar ayuu leeyahay saalex almunajid in ay tahay falsafad diimeed hinduusi ah shay u gaar ah dadka diintaas aaminsan laakiin arrimo ay la xiriirto in xilliyadii ugu dambeeyey galbeedku ay ka cabanayaan dhinaca ruuxiga in ay eber ka yihiin ayaa keentay in yoogadu ay aad ugu faafto waddamada galbeedka maraykan iyo yurub arrinkan oo keenay in waddamada sida indhala'aanta u raaca wax kasta oo galbeedka ka imaaday ay yoogadu u maleeyaan shay caadi ah sidoo kale daakir naik ayaa ku tilmaamay yoogada inay tahay shirki
ninkan waa hindi yaqaana luuqadooda dhaqankooda nooga cilmi badan wax kasta oo hindiya ka imaaday waa caalim hindiya wuxuu ku tilmaamayaa shirki iyo khuraafaad. Good evening, Dr. Zakir Naik. My name is Kamalanathan. I'm a student. And my question is, a few years back, Malaysian Fatwa Council, they banned Muslims from doing yoga. They say it's against Islam. Is that true? Is it true from the point of Al-Quran? Thank you. Yoga is a form of exercise. Yoga, you may say things, for example, I'm aware of something, I'm not an expert in yoga, but I'm aware that in yoga you may have to say certain things like Om and narrate and chant certain things. All these things may lead to shirk. It may lead to shirk. That means you're calling somebody else as the creator besides Allah subhanahu wa ta'ala. In Islam, as I mentioned in my talk, according to Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116, Allah will forgive any sin, but the sin of shirk will never forgive. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. sida uu ku soo gabagabeeyay Dr. Zakir, Ilaahay dembi kasta wuu dhaafaa markii laga reebo in loo shirki yeelo. Shirkiga in cibaadada shay kale lala wadaajiyo, in ilaah kale meesha la soo geliyo, noocuu doona ha ahaado. marka yoogada waxay keenaysaa qofku inuu shirki sameeyo, inuu iska dhaadhiciyo inuu la hadlayo ilaah kale. dadka muslimiinta ah ee inta badan sameeyo yoogada haddaad raacraacdo waxaad arkaysaa in ay yihiin dad ruux ahaan ebera, dad diin ahaan aanan wanaagsanayn, raadinayana meelay uga cararaan diiqa iyo ciriiriga, laakiin waxay mareen ama ay ka raadiyeen waddo qaldan. islaamku waa diin dhinaca ruuxda iyo nafta iyo jirkaba siinayo ahmiyad iyo wax dejiyo. in garowe lagu qabto waa shay aad looga naco runtii, laakiin Soomaalida inay aad uga hadleen diideenna waa shay ku tusinayo in ummaddan weli ay wacyi leedahay. waxaana ammaan mudan duqa magaalada Garowe oo arrinkan ka soo horjoostay diidayna, inkastoo laakiin nasiib xumo magaalada lagu qabtay.